maanahe ayaad ku baratay aalada YouTube-ka jaceylkooda muuqday hadda se kala tagay maxaad ku sababaysaa maadaama jacayl aan reality ahayn in lagu soo bandhigo YouTube-ka aad sheegtay haddana lagu kala tago wallahi horto lamaanihii ugu horeeyay aan arkay kuwii ahayn ma qiyaasi karo laakiin Xafsa iyo Rashka Boy waxaan lamaanayaasha ugu horeeyay qiyaasteeda ana xataa aan asdaama iska aroostaa sababtan wax kale maahan inkastoo iyaga marka dambe ay sheegeen in waxaas ay jileen ahaayeen laakiin markii kooda dadkii ugu qaldanayaan qayb ka ahaa in waxaan yihiin reality la isku sameynayo wixii jannada lagu tagi jiray sababtoo ah diintaana faraysa in gabadha ninka qabo ay u noqoto qof adeecayso marka dee gabar saygeedii kaamirada horteeda ku adeecayso waxaa la isdhihi karaa luuqa kalena saygeeda ugu adeecda marka dadkii ku sirnaan ka mid ahay inkastoo ay kala tageen aad uga xumaa laakiin waa dadka ogaadaba social media wax lagu haayo inay af Soomaali yihiin haddii aan ku dhaxal lamaana YouTube oo kala tagay oo jaceylkooda aad aaminsaneed waqti xaadirkan isku soo celi hadiiba aad awoodid in hadalkaaga iskugu soo laaban karaan yaad dhihileed isku soo laab sikii xaskiis sabab kale ma sikii wili single waaye saasaan dhila sababtoo hadaa dhoo Rashka Boy iyo waxaa laga yaabaa in baxar la galo maadaama Rashka Boy uu xaas leeyahay marka waxaan dhihi lahaa saaxiibkii sikii axbadiisi dib ha soo ceshto waxaana u kala kacay mar kale waa tahay waxaa taageertaa Tubeec dabcan sidaad ku sheegtay fanaaniinta aad taageerto ku jira hees ka mid ah heesaha Tubeec ma ugu luqeyn kartaa wallahi hadii la xasuusiyo waa isku day lahaa waa la isku day karaa laakiin heesna kuma fiicni hadda hees waxa u maleynaa dadka muuqaalkan daawana inay iska dimiyaan wax yar xataa waan ku dul qaadanaynaa dadka daawanayna marka heesta qays dhagay wax yar suuf sii gashanay nagaradkay ka gaabsan waaye adna garashadaadii weed teembadii ay iga qaldoontaba fanaaniin iskuma fiicnin laakiin aad aan u jeclaa fanaankaas anigoo fanaaniintii hore geeriyooda aan jeclayn ay soo dhageysto haddana Tubeec isaga cid macaanaadii ha u dulqaato waxaa inta badan la sheegaa dadka caanka ah inay isla weyn yihiin adigu maxaad ka leedahay hadalkaas maad beeninaysaa mise waa wax xaqiiqo jira dadka caanka ah suurad laga istaajirtaa sheegtay waa inay isla weyn yihiin dee qof caana sabab iskula weynaado aniga maba aqaanba sababtoo ah dadku wax ku yahay waa dadka laakiin dadka waxay ka dhigaan qofka inuu isla weynaaday gaarsiiyaan tusaale kale aniga telefoon aan wataa WhatsApp number aan leeyahay haddii maanta ay 10 qof ila soo hadasho wax ma la yacni in igala hadlayaan ama waxa ani faa'iido lahayn iyagana faa'iido lahayn dee ma ku qasbani dadkaas inaan qanciyo marka dadkaas waxay ku leeyihiin qofkan uu isla weyn yahay marka taas laga tago marka aniga ahaan isla weynidu inay tahay wax fiican ila ma ahan mana isla weyniyo aad ugu farxaa markay dadkii dhahaan waxyaabo sawir ila galo kale waliba anoo diyaarsaneen oo style ahaan aan diyaarsaneen sawir ahaan diyaarsaneen ama labis ku haboon aan wadanin oo bakaaro kale ama suuq kale wax ka soo doontay oo style-kiga saxneen laga yaabo qof taageerayaashiisa kamid inuu sawir ila gal dee markaas ma dhigi karti ma diyaarsani waxaas marka taas cadeynaysa aad leedahay dadka waxyaabo faa'iido lahayn ayagana u lahayn anna ii lahayn markay ka hadlaan oo kale maqan inaan qanciyo kuma qasbanayso lagama wanaagsano halkii aad maadaama wixii uu ku soo bandhiga shakhsigani in aad si degan aad uga dhaadhiciso waxyaabahaasi ama aad ku qanciso in wax aad uga samayso waxyaabaha uu ka dalbado waxyaabaha kala duwan qofka hadii uu caawin ka soo dalbado dabcan ani ahaan waa waxa ku amaananahay anigana isku amaanahay waa wax ani ahaan iga muuqdo waxaa arkaa man qar YouTube kana isku daawanayo dad YouTuber oo aan aqoonin inaan muuqaalada iska share gareeyo dad page leh oo aan ahaan talent leh iska share gareeyo kale qofka soo codsadana kaba sii daran laakiin waxa iska jiro dad oo group oo kale la jooga qofka ama asxaabtiisa la jooga iska soo waca waa ka qabanaysa ma kula hadlaayo magaca uu ku weydiina
waa uga jawaabay kadib waxba makuu sheegaya marka waxyaabahaasoo kale ka wada waxyaabaha aan fiicnayn laakiin qofka hadduu project kaala hadlaayo ama uu ku dhahayo waa ku taageeraa ee aa leedahay soo dhawow inta aas kala socono ama uu wax ku weydiisanayo waa wax qurux badan marka taa ka hadla inaa ila fahantaa rajeynaya waa tahay nolosha caannimada waad aragtay midda aan caanka ahayna in badan waa kusoo nooleed labadooda farqi caynkee baa udhexeeya keebaase nolosha lagu raaxaysan karo ama lagu deganaan kara mid kalaa lagu deganaan karaa oo caanka ahayn sababtoo markaad caanka ahayn kama fikiraysid labis kama fikiraysid qofkaas muxuu kaa aaminsan yahay qof walba markaa caantaa sawir oo kaa haystaa wuxuu kaa aaminsan inaad tahay qof aan fiicnayn wuxuu kaa aaminsan inaad tahay qof xun gabdhuhu ha u badnaadaan waxay kaa aaminsan inaad tahay nin aan sidiisaba fiicnayn wiilasha qaar waxay kaa aamini karaan inaad tahay qof aada iskula weyn marka nolosha caannimada way kuleel badan tahay sababtoo ah haddii maanta aad meel martid waxaa laga yaabaa qofka inuu magacaaga yaqaano suurad kan la kaa haysto oo dadka kale wax kale ugu sheekeynayo dadkiina markay kula kulmaan ay ku dhahaan waxaasaa lagaa sheegaya mana tishidoo ni qof fiicanaaba tahay misla weynida ay ku dhahaan marka waxaa aaminsanahay nolosha banaanka ah ee caannimada ka fog inay raaxo badan tahay oo adoo isku toosneen suuqa alaab kasoo doonanay waa tahay su-aasha ugu dambeysa ee barnaamijkan la soo gaarnay ugu dambeyn dhanka siyaasadda sidee baa isku tihiin ma jecel yahay Shafiino inuu siyaasi noqdo xil ceenkee uu rajeynaa inuu qabto haddii uu jecel yahaba aniga meelaha hoos ma jecel inaan madaxweyne noqdo tida kale siyaasadda aniga waa hobbigayga waa jeclahay inkastoo aan saxaafadda uga hadlin oo saxaafad marka laga dhaho iyo Soomaaliya sida ay tahay riski ahaan inkastoo aan u jecleen haddana siyaasadda ani waa bartay public administration ka qalin jabiyay waa jeclahay xiriirka caalamiga bartaa jeclahay master oo had dalka ka baxo oo wadan kala tago insha Allah siyaasadda waxa ka leeyahay mustaqbal fog ka leeyahay laakiin hadda waa iska dhalinyareyna soddon sano hadda kadib hadda cimri hela siyaasad soo gala marka Shafiino madaxweynuhu dalbaday inuu noqdo waxa ahay wax marka bartilmaameedsanayo jeclaa meesha ugu sareysa aadiya haddana meesha ugu sareysa gaarin in wasaaraha soo gala waa tahay daawadayaal intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka kaftanka caan dhale oo toddobaadkani martida oo inoogu ahaa Shaafici Shafiino anigoo Maryana ayaa barnaamijka soo saaray iyo daadiye ka ahaa kaamirooyinka quruxda badanna waxaa duubayay Cabdicasiis Shiil inta aan barnaamij caynkan oo kala iyo shakhsiga xiga aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh